السلام عليكم مركا وكورسدي ahayd web development 101 oo lagu baranayay HTML CSS Bootstrap JavaScript SQL marka muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida loo soo gelin karaa marka documentigaga HTML ka aad adeegsanaysid image ama sawir sida loo soo gelin karaa marka waan arki doonaa marka koorsadan waxay ku saabsaneyd qaabka loo sameeyo website marka haddii u baahan tahay marka koorsadan oo dhameystiran waxaa nala soo xiriir kartaa Instagram keena ama WhatsApp keena ama weliba Gmail keena ama weliba Facebook page keena marka koorsadan marka sidee ku heli kartaa marka description video waasiisan ku dhigaa linkiga iyadoo dhameystiran meesha ayaad heli kartaa marka aad ka daalan kartaa koorsadan bilow ilaa dhamaadkeeda marka muhiimadda muuqaalkan hadda loo sameeyay maanta waxay tahay image oo sidee loo soo gelin karaa marka meesha marka waxaan ku haysanaa documentigii hore aan kusoo shaqeynaynay markii aan bilaabeynay koorsadan ama chapterka marka koorsadan barti chapter 1 waan soo dhameynay oo horta wax yar oo ku ahay marka chapter 2 waa marka ku guda jirnay oo ahay HTML basics marka waxaan soo sameynay muuqaalo iyo kuwan oo projectyaal ah marka projectyaasha marka meesha ku dhex jira marka waxaan sameystay folder oo images markii lagu dhufto waxaa ku jira marka hal sawirka marka waxa ay u qoran sawir koow marka sawir koowgana marka waxa rabaa inaan soo dhex gashto page-kayga HTML ka marka page-kayga HTML ka waa kana marka copy gareysanaya oo had mid cusub file cusub aan sameysanaya oo lahayo image.html markii kaas aan sameeyo aan paste ku dhaho marka kan uma baahno oo marabo kan uma baahni marabo kan waa title-keygii waxaan iska qoray marka image html markii live aan soo kiciyo arkeen adana kan aan yareynaa marka live-kii ayaan soo kiciyo okay kan iska soo yaree siga markii aan soo yareeyo marka waxaan rabaa marka meeshan oo ah browserkayga anigoo adeegsanaya marka HTML inaan soo dhigi karo marka sawirkii haday ahay sawirkooga marka sidee u soo dhigay marka waxaa la isticmaalaa marka asiga tag lahayo in tag la furo la xiro ayaa loo isticmaalaa si ogtii marka muuqaaladii ugu horeeyay markii laakiin sawir la sameeyay way ka duwan tahay sidaas sawir markii soo gelinaysid waxaa furaysaa kaliya tagas automatic ahaan ayaa is xukumay oo is xiray ma u baahna mar in la soo xiro tagka la dhameystiro marka manka yeelay dio taga soo xiro document error waxa ku soo saara marka documentiga HTML ka error ka jira marka tag marka oo image ka waxa loo qoraa marka img oo laga soo gaabshay image meesha u jeedna marka hadii waa xira aan dhaho automatic soo dhameystiro marka error ma jiro waa sax laakiin markii la adeegsanayo kuwa kale aad amal body markaan qorayay body markii aan qoro aan soo xiray automatic ah markii tagis soo xiray kan asaas sameeyay kan markii aan sameeyay aniga kan asaas sameeyay marka kan sameeyay ujeedo marka sana loo targalay marka image waa sida hadii aad soo fiirsatay marka muuqaalkii chapterkan muuqaaladii ugu horeeyay chapter 2 markii la sameeyay muuqaaladii horeeyay aan ku soo aragnay hadii aan soo fiirsan marka description ku dhiga video-ga hadii YouTube-ka visit meesha ka fiirsan kartaa okay marka waxa loo baahan yahay image-ka markii ay saas tahay in la isticmaalo marka image-gan meesha noo yaal inaan ka soo qaadi karno waxaa noo sahli karo marka waxa la source inaan isticmaalo marka oo la soo gaabshay src markii aan isticmaalno waxaan tagaynaa marka folder-keeni ahay images marka waxaan ku gudaynaa horta folder-keeni ahay HTML basics kan ayaan ku guda jirnaa saa u jeeda marka folder-keeni marka images kan ku sii dhufano waxa ku jira marka hal sawir ay ku jira marka sawir badan waa soo gelin karaa laakiin hadda halkan sawir marka soo gelin oo ah sawir koow marka sawir koow aan soo gelsho si automatic marka kana oo soo galay marka image-ka oo aad u weyn yahay marka sawirka saa u jeedaan aniga oo wato boorso arday weey band marka sawirka marka waa kana waa soo gelinay page-keeni dhan ayuu noo qaatay waxa marka style-ka sida loo sax karaa marka muuqaaladan baa ku arki doonaa marka hadda uma baahna marka in wax kale aan ka sii qaadano hadda marka meeshii hadana sawirka la soo dhex dhigaa marka sugo xir okay marka hadda sawirka la ku dhex jiro kan waa iska tirtiraya
markay saas tahay marka sourcigii oo la soo xidho si kusoo noqon marka horta imageka iga xir sourciga markaad sameyso sourciga markaad sameysto marka image folderka aad igu dhufto laba sawir ayaa ku jira marka sawirkan markaan ku dhufanayaa oo ujeeda oo mid kale marka marka sawirkan half way saa ujeeda hadda sidii kii camal ma aan oo weynay marka waxaa sawirka waa la habeyn karaa waa la qurxin karaa meel wax la isticmaali karaa waxaan ku arki doonaa marka haddii aad koorsadaan dhameystirnaa aad iibsatay ama aad haysatid in aad dhameysan kartid marka oo aad fahmi kartid qaabka loo isticmaalanayo loo habeynayo marka muuqaalada dambe ku eegi doonaa marka waan ku mahadsantahay in muuqaalkan aad daawatid السلام عليكم marka kusoo dhawo muuqaal cusub oo ku saabsan web development 101 marka muuqaalkan marka wuxuu ku saabsan yahay sida loo isticmaali karo marka Potamis sida loo isticmaali karo waxa ku soo aragteen oo maleynaya koorsada markii bilaabeynay chapterkan dhayahday marka bilaabeynay ayaad soo aragteen Potami maxalla iyo sida uu qormaniya qaabka loo adeegsan karo marka inta waxa arki doonaa marka aniga HTML aan isticmaalayno inaan sameyn doona button marka hore aan guud galno meesha marka waxaana ku haystaa ujeedo last projectiga aan sameeyay kan ayaan soo koobi garanayaa oo marka waxaan sameyn doonaa marka file cusub oo dhahayo buttons.html oo extension kale isticmaal kasta markasta oo html sameeyo marka meeshaan ku basti garanaya markaan laho ma baahna kan waan iska delete garanayaa kana marka waxaan ka dhiganayaa meeshaan web development ay ku qoran tahay Potamis ayaan ka dhiganayaa marka Potamis markii la sameynayo body dhexdiisa ayaa heading ku qoray ma aha uma baahno kana waxaan ka sameynayaa marka Potamis.html Potamis.html ay raado markii la sameeyo oo live aan soo kacsado arki doona marka button markii la sameynayo kaliya marka waxaa la isticmaalayaa tag la dhahayo buttonka ayuu ku soo baxay marka hadda kan Potamiskan waa heading ii qornay marka button aan sameyn doonaa oo body dhexdiisa ku dhex sameyn doonaa inta aan raado marka tag waxa leeyahay button ayaa furina tag button markaan furno waa xirnay waxaan ku dhex qori doonaa marka subscribe no subscribe markaan dhahno aan soo kicino soo ujeedo marka button ayaa meeshaan soo galay buttonkan waa kana marka click kadib loo siiyo inuu subscribe saaray marka button marka saas ayaa loo sameeyaa marka muhiimada kaliya waxay tahay doodii markii aad doonaysid in Facebook-gaaga page-ka camal like lagu saaro camal button aad sameynaysaa button markii lagu dhufto like ayuu si toos u saaray marka waxaas camal markii la sameeyo oo automatic ahaan page-ka markii la sameynayo waxaas marka waa arki doonaa marka anagu website building website aad dhisi doono markasan ay tahay waxaa la isticmaalaa marka in lagu dhex qoro marka linki hadii hadda meeshaan aan ku qoro linki sidii loo sameynayo horta waa fahansantiin oo maleynaa marka ko waxa loo baahan yahay marka in la sameeyo tag lahayo tag eega markii la dhaho kana marka la soo qaadaa muuqaalka ka horeeyay marka linki ku soo baranay markii tag eega aan furno meeshaan marka waxa la dhahaa lahay ref markii aan qorno markii buttonka subscribe lagu dhufto waxaa rabaa inuu ii soo baxsho muuqaalka hore projectigii ahay hyperlinkska markii lagu dhufto waa kana saa ujeedo kana marka ku dhufto way ii soo baxaya marka hadda marka haddii aan dhufto aan dhaho subscribe saa ujeedo marka wuu isbedelay oo wuxuu ii soo saaray page-kii oo faaruq ahay marka hyperlinks.html oo yaala marka desktop-keeni marka waa sidaas oo qaabka loo sameyn karo markii bottom oo markii isticmaalaysid marka HTML السلام عليكم kusoo dhawaa kanaalka hore marka ardaydii bulshada Mano Production marka waxaynu socotay koorsadii lagu baranayay HTML CSS Bootstrap JavaScript jQuery marka koorsada waxaan ugu magac darnay web development 101 wili waxaan ku guda jirnaa oo muuqaalkan uu kamid yahay chapterkeedii labaad ee koorsada marka koorsadan waxay ahayd koorso aad u ballaaran oo lagu baran karo HTML ahaado CSS ahaado Bootstrap jQuery marka
cashirkan maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida loo sameyn karo listis markii la joogo html. waxaan isticmaalayna marka program la dhaho practice oo ku qoraynin codeskeena. marka programka kana saa ujeedo last projectkii ugu dambeeyay oo imageka ayaan isticmaalayna anaga. marka halkan waxaan ku guda jiraa marka hal folder wixii dhan isku keenayay new file samaysanaa oo la dhahayo listis.html. marka kana aan okay dhahdo waxaan soo koobiyeysanaa marka structure-kii uu leedahay aan sameynay html structure-kiisa sameynay oo projectka waxaan dhamaan marka waa helaysaa oo website-ka oo koorsanka daawanaysid ama waxaa ka helaysaa marka youtube-ka description-ka videoga hoostiisa. halkaan ku paste gareynaa waxay tahay marka kan aad sameynayno lists. marka list of html aan dhahaa live-kan kacsaha live marka way soo kacayaa saa ujeeda. hadda kan waan yareysanaa isla bracket-keygana waan yareysanaa oo saan u arko si live wixii ka dhacay. markii meeshaan aan ku dhex jiro waxaa waay bodigii dhexdiisa marka waxaan ku sameyn doonaa listiga bracket-ka weeye cashirku. marka waxay tahay markii la sameynayo listi waxaa loo sameeyaa marka laba qaab ayaa loo sameeyaa. macnaa laba list caan oo laba isticmaala ayaa jiro oo dad badnaa ay isticmaalaan. waxaa la dhahaa marka unordered list iyo ordered list. marka waxaan kusoo sharxay labadoodaba muuqaalkii ugu horeeyay ama muuqaalkii labaad ee koorsadaan ama weliba chapterkan labaad aan ku guda jirno oo ah understanding html ayaan kusoo qaadanay. hadda marka waxaan sameyn doonaa unordered list oo ah bullets. muxuu qaadanaya marka dhibic ayuu qaadanaya, laakiin kan ordered list marka wuxuu qaadanaya markasta tiro ayuu qaadanaya oo sidee isku xigaan koo lama saddex. marka unordered list marka sidee loo sameynaya arki doonaa. tag waxaa furinaynaa marka la dhahay ul oo la soo gaabshay unordered list. okay marka saas u sameysmo enter baan dhahayaa oo dhexdiisa marka waxaa lagu qoraya marka listiga. marka listing marka aad sameynaysidna waxaa lagu dhex sameeya marka asigana tag la dhahayo list items oo loo soo gaabiyo li. marka si automatic marka ku xiro isla ujeeda marka live-ka pointiga si toos ayuu soo qabtay saa ujeedo. marka tusaale ahaan haddii aan qoro magac Axmed haddii aan dhaho saa ujeeda marka Axmed waxa uu qaatay dhibic ayuu qaatay oo laga wado marka unordered list. haddii markale aan mid kale oo sameeyo oo la dhahayo list item dhexdooda aan ku qoro cali saa ujeedo markale ayuu qaatay. marka haddii markale aan sameeyo list itemska marka saa ujeedo waxay qaadanayaan marka in oo dhibic iyo isticmaal. marka list item macnaha waxaa waaye markii la sameynayo list waxaa la sameeyaa marka laba qaab order list ama unordered list. marka hadda waxaa kan waxaa waaye unordered list. unordered list marka dhexdiisa waxaa la rabaa marka list item in laga dhex sameeyo taagaas markasta la furaa oo loo baahan yahay in lagu qoro. marka saa ogtii marka html marka joogo markasta wax la sameynayo waxaa loo baahan yahay tag. list itemka marka wuxuu holding kareynaa marka asiga keligiisa wixii lagu qoro ayuu soo saaraya marka asigoo raacaya marka tagga uu ku dhex jiro dhexdiisa. hadda dhexdiisa waxaa ku dhex jira asiga unordered list ayuu ku dhex jira. marka haddii meeshaan aan ka dhigno ordered list dhibicdhimaxa waxay isku bedeleysaa marka kow lama isku bedeleysaa. marka tusaale ahaan marka hadda unordered list kii ugu dambeeyay aan qoro camal xasan iska leh so marka kan saa ujeeda marka wuxuu ahay unordered list. marka hadda markaan eegno ordered list markaan eegno ordered list marka iyadana waxaa lasoo gaabay aragteen malayna order oo laga gaabsho ol. ordered list waxaa la wadaa inay qaataan koo lama saddex inay qaataan. unordered halka ahayd dhibic. hadda haddii aan kan soo koobi gareeyo list itemska ku jira dhan aan dhex keeno marka ordered listiga saa ujeeda marka hadda waxay qaateen koo lama saddex afar shan.
haddii rabo mid kale waana kusoo darsan karaa oo keliya marka waxaan dhahayaa list item oo ah li ama waxaan dhex qoraya marka saa ujeeda marka markasta marka si u kala horeeyaan ayay u kala qaadanaya marka sida markii axmed ko cali lamo maano markas ayay u kala qaadanaya ka order list yani order listkii marka casharkan waxaan filayaa inaad si fiican u fahamteen oo qaabka loo sameyn karo marka listi marka la joogo html ayuu ka caawinayay marka